waxaan rabaa adana buugga qoradiisii aan ahay inaan wax idinka bilaamiyo maalmihii hore waxaan isugu nimid buugaag kale inaan hadda saaxiibana meesha fadhiyo wuxuu yidhi ma qorismaris baa qordamisay marka waxaan idhi qorismaris ma ahan buugga hadda aan soo bandhigayno waa dhacdo weeye xanuun leh waxyaabihii dhacdo Soomaaliya masiibadaha oo ka dhacay mid ka mid ah weeye waa mid haddii aan loo helin in la kaydiyo la qoro la xuso ay dhacayso in badan oo kale inay soo noqonayso marka laba wax baa muhiimadu tahay marka wax la qorayo weliba taariikhda marka la qorayo taariikhda iyo dhacdooyinka la xuso waxay mustaqbalka dambe ayay waxay u tahay mid saameyn ku yeelanaysa waxaa la xusay in laga leexdo ama dhacdadaas iyo sifahay ku tumid inaan dib loogu laaban tan labaadna waxay u tahay in la xuso dhacdooyinka noocaasa weliba dhacdadan dad badan oo waxtar ah oo Soomaaliyeed hooyo aabe caruur aqoonyahan culumo nooc walba leh bay saamaysay guryo badan bay saamaysay weliba markii aad buugga iyo sheekadiisa dhex gashid casharo badan baa ku jira oo annagu badanaa taariikhda ma xusno mana tixraacno mana fiirino laakiin marka aad hoos u sii fiirisid darsiyo badan baa mustaqbalka waxtar u ah in badan oo naga mid ah ama jiilasha dambe baa buugga ka dhaxelaysa qisada buugga qofkii ay ku dhacday baa nala jooga goobta Jinow Caynab Axmed way noo soo galaysaa hadalkana qayb bay ku leedahay waxaan aad ugu ilaahay ugu mahadinayaa inaan isbarannay habeen ay soo wacday qisada qabsatayna ay iiga sheekaysay runtiina ay dareen igu reebtay waxaan maqlay taasaa sababtay inaan iraahdo diyaar baan u ahay inaan wax ka qoro dhacdadan waayo marka ila hadlaysay ama ayadu dareenkeedu uu waday waxaysan la socon marka ay ila hadlayso in dadka ay saameynta ku yeelatay dhacdadaas aan ka mid ahaa baysan la socon laakiin marka ayada wax gubahayay baa waday waayo haddaad buugga aad akhrisaan baad dareemi doontaan teedii markay ka hadashay anna awalbayba laba gabdhood aan walaalanahay baa ku dhintay oo dad aqoonyahan ah baa ku dhintay doonta shilkeeda ka mid ahaa dad kale ehel aan ahayn oo badan baa ku jiray marka ayadu maysan ogeyn marka ay la hadlayso inaan ka mid ahay isla dadka ay ayadu matalaysa marka kadib markaan buugga bilaabay aan qoray dad badan aan la sheekaysto mid walba wuxuu yiraahdaa rag ka mid ah doonta baan ka mid ahaa raggii aan la kulmay oo yiri maxay waxaad ka sheekeynaysaa ma taqaanaa ka mid baan ahaa moogta marka waxaan ogaaday saameyn ka weyn tan markii hore filayay aan ayada dhinaceeda ka arkay inay buuggu leeyahay dhacdadu leedahay kadib markii aan bilowna inaan qornana waxyaabo taariikhiyin aad noogu muhiim ah casharana ah baa ku jira mustaqbalkana wax weyn naga siinaya qisooyinkan aan ugu jeclahay si guud baan u dulmarayaa waxaa ka mid ah awoodda ilaahay baa buugga ku jidha sida uu qofku rabana u badbaadinayo qofku uu kalena u saameynayso buugga waxaa ku jira hooyo Jinow gabdhaheeda mid ka mid ah oo baddu liqayso baddu marka ay liqdo qof walba markuu biyaha waan la soconaa qofku waa degahayaa marka hore aan dabaaliyo waxba aqoon markuu dego kadib biyuhu qaadanaya wuu cuslaanaya salka u fariisanaya ilaa aad naftu qofka ka baxdana hoos buu joogayaa naftu markay deyso qofku kor buu imaanaya
gabadha yarka marka sifooyinka aan mucjisooyinka aan ku arkay sheekada inta qorayo way laakiin intaas soo kale oo la mid ah bay leedahay waliba dadkii ay kamid ahaa ay kaaga sheekeynayaan gabadha marka ay dhimato marka ay degto salka markay degto hooyo Soomaaliyeed oo ka hor ayada biyuhu laqay oo salka taalay dusha ka fuulaysa dusha ay ka fuushay hooyada marka ay fuushayba naftii baa ka baxday hooyadii baa soo qaadanaysa markii gabadhii hooyada dhimatay baa gabadhan wax u noqonaysa badbaado babad arag 9 saac kadib gabadha oo suuxsan bay la wareegaysaa sidii qof saxiimad ama doon la saaray ma garanaysa waa barigii baana la helayaa gabadha hooyada la isleeyahay qabta mase waxba ka dhacay markii laga dabato gabadhu waaba naf baa ku jira marka awoodda Ilaahay iyo siday gaarsiisan tahay markuu rabo naf inuu badbaadiyo mid dhimatay buu u sababayaa inay wax badbaadiso waa mid dhimatay hadda oo aad isleedahay qof dhintay waxna ma qaban karo waxna ma samayn karo marka dhacdooyinkii la yaab kale aan intaan qorahay buuga aan ka dhaxlay bay ahayd buugu sidiisuba dhacdooyinkaas oo kale marka la xuso maxaa casharo oo ma ahan inaan caawa halkan aan uga hadalno kaliya laakiin waxa weeye inaan wax ka qaadano maxay raado yeelanaysaa maxay sidaan u dhacday maxay weydiyo yaan rabi laha halka uga harmaayo hadda markaan baxayno adreeskeedan qaadana hadii ay ogolaato laakiin qof ay ogolaan oo eg toosan ii soo dhaweeyay ma ka gartay markaan soo galay waa ma santiin دكتور aad buu mahadsan yahay waxaan manayaa qoraayada waxa isma diidan jiro imka wax ku beertay dadka qoraaga way ku beertay ninka xil gaar ah yeelanaya manayaa waxaan rabaa inaan u dhiibo دكتور سلطان محمد سلطان إبراهيم أنت أنا أقول بين واحد ربع أوبيسيس قاريجا نمبر كيسو ياهي LS لحدنا يشن MUV قاريجاس وحلو بهاي ماشي اللي قاعدو قاريجا كانوا يسوون تارجيس هاي FJ 13VVH باور طبعا ربع ودك وحريه باليدي اللي قاعدو يالو باور كلا أو حنبان dadka garanaya baawta was garanaya baan baawta dadka leeyahay waa ku soo noqonayaan goobtooda laakiin inay baawta meesha ka qaadaan baawar kala wax niman waa mahadsantiin waa yahay waxaan rabaa inaan codfiya u dhiibo Sultan Maxamed Sultan Ibrahim Garyare Sultan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى ما كان له كل مية مناسبة هداها السن أما قيمة عليه وأي كل مسي ضد بدن وأنا دريميه إني أعدو درينا قرار كي أخرسك أنت كبعد حوي بني أنا ورسول ما هي إجلن لكن سنة وأنا شوجا أداونا رسول الله وحكفنا إن هاي قرية شوجا من حاجة شوجا حاجة دجال بني أنا قوم معلنا تقصر معلنا كمان يسود الشهر بمعنى وحيري ما صار ديارنا مادة الدين ودك أرضية دوكسرة أرضه مركا إذا تضبط فيها يعني هذا مسلم تركي عين كاسة سوالف كوتشين مركا وحنا ديانو دين مردقو دين الإسلام كان على كتكوك حال كما كانوا حال قرنيه وحيري الإسلام كوور وانين أوبرت الدماء سو شقهان لكن ديان عقيدة هنوبر وانين يسود شوها هذا أرضي بان أولي أركانته إمامك يقابك لوت كذا هذا وحيري قرآنك محافظته سان الماء لكن وحن في يعني إن تفسير كأذ عن نكتيه أو حكي قرنيه بركو حيري آيات القرآن كوس وأنا الدين تحكي فهم سن آيات القرآن كوس ما قرني سن ها ما قاعد أنا ما حلي علق أنا أقرأ لبسوا يقان ما هي كشيء كينسا waxay ka sheekeynaysaa in dadka la amray inay wax qoraan ama akhriyaan markaasuu arigu wuxuu yiri oo niyo diintiina waa qoraal iyo akhris ku dhisanay hadoo fiirsada maanta la joogo waxa dadka muslimiinta waa kuwa akhrisa yar uguna qoraalka yar taa waxaan ka wadaa inuu ummadda Ilaahay sheegay laakiin ay arintaasi muuqato inta kadib hadaan ka gudbo waxaan filayaa 16 sano ku soo jira qoraalka
gabadhii saddexaad weeye oo aan buuggeeda ka qayb galo waxaa fiicnaan lahayd inay ragga gabdhuhu la siman xagga qoraalka jinow caynab faadumo na ii sheegta magacaas soomaalida waa iska eel baan noqonayoo magaalada ku dhalatay aabbe magaalo ku dhashaa hal magaalo noqon isku shoon bay ku dhalatay halka eel baanu ka noqonay taas intaadaan kaga gudbo runtii buuggani buwaagteennu soomaaliga lagu qoray waxay ku bilaabatay sheekooyin fictionless ama abuur jacayl aan sax ahayn sheekooyinkii diin baa dawaca cunay diin baa carab ka xaday maaragtay dawaca ka xaday sheeko caynkaas way ka gudubtay oo waxay gaartay qaab akademiga taariikho iyo in laga sheego scientific iyo dhacdooyin ama sooyaal anigu buuggoodina waxaan ka qoray soomaaliga iyo sooyaalkiisa soomaaliga waxaa la qoray 1760 laakiin inaga waxaa laynoogu sheekeeyey in kacaanku 70aadkii uu qoray laakiin wuuse urursanay Soomaali xilligaas la qoray yaa qoray nin Soomaali ma qorin waxaa qoray ajaanib danaynaysay dalkeenna iyo dadkeenna umada doonaysa in dan laga yeeshana dee waxbaa laga ogaadaa waxbaa laga qoraa xarafka caada iyo xaalan ku jirin laakiin inta kale Soomaali wey India lagu qoray buuggoona Soomaali laga qoray oo Soomaali ah nin Ingiriis ah qoray waxaa la yidhahdaa ninka Soomaaliga qoraalkiisa ugu badiyo ee jaamacad akademiyada ku qaatay way jiraan Soomaali biyada ku qaatay laakiin waxaa la oran jiray Andrew Wisk Dr. Bush baa loo yaqaan qoraaladu waa yaqaan Ingiriis halkan ku dhintay marka waxaad ogaanaysaa inaga afkeennii inaynan danayn laakiin dad kala daneeyeen taa waxaa weeye guubaabo waxaa kaloo guubaabinaya hablaha aad baan u faxsan haddii aynu hadda isu tirsanno lab iyo dhadiga badan waa guul aan jeclahay inay gabdhow gaareen maadaama iyagu aad meesha u badan yihiin qoraalka maanta la fadhiyo inkastoo ficiladu ku jiro laakiin waa inaad kaga dayataan gabadhaas jiro gabadhaan qaraabada noqonay inaad kaga dayataan ma aragta insha allah qoraalka inta haddaan kaga gudbo isku faala guud weeye iska hadal badnahay buuggani qaab hindise fiican buu u dhisan yahay qaabka hindisaha u dhisan yahay ama engineering ama structurekiisu waa qaab academic ah oo isku xiran oo qisa meel ay taabanayso runtii dhacdooyinka ay gabadhu ka sheekayso walaashay jinow waxaa weeye dhacdo muuqato wey doonta aniga waxaa ku dhintay adeerkay mid kalena waa ka badbaaday iminka waa nool yahay maraykan buu joogaa qoys kasta oo Soomaaliyeed markii la qaxayay waxaan filayaa saameyn bay doontaas ku yeertay doomo la mid ah hadda waa xagga badda odagana muxuu ahaa aniga baddu dhib hayso baddu tii wax ku siiyaa barigu laakiin dhib buu ku hayaa marka waxa weeye tii dhulka dhiman markii lagu dhiirado in dhulkan waxa laga qoro dhibaatooyinka dhacay iyadoo aan loo eegin partially in lagu cambaaraynin in lagu amaanin laakiin dhacdo weeye ummaduna inay sooyaal leedahay la qoro la dhigahay waxa weeye waxyaalaha ummadda dambe ay ka faa'iideysto weeye inaga waxaa sheeko telis folka telis ama hadal baa nu weeran jiray heel baa xagga istaagay saas waxay keentay inay taariikhdeena dhumiso laakiin wuxuu hadday qoran yihiin sida Cabdisalaam sheegay wadaadku Sheekh Muumin oo ka sheekeeyay wixii la qoraa quruum harada afartanaadkii eragaas Cabdisalaam muxuu hadal qiimo leeyahay ana hadalku waa tagaya laakiin dhiganaha ay gabadhu qortay dad badan baa ka faa'iideysan doona wayna ku dayan doonaan waxaana la doonayaa oo aad aan runtii uga daarmayaa qofku maalinka uu la kulmay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo qabriga la dhigo haddii aad dhigaal qorto ku sheegto waxaan saxayn waa ku daba soconaysa laakiin daaimka biyaan idiin sheego halkaa dhaafimayso marka laga fakero dhigaalada cidda qoraysa ku qora wax saxa oo berrito markhaanti ku noqon doona waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.